waxaan kuu sheegayaa inaan meeshan doorashada uu ka dhaceen dalkan madaxweynahana 13 bisha 12 maalmood oo hadhay doorashada uu qabanay karaya ma jirto meel xukumayana 12 bisha marka ay baado 13 bal Muuse Biixi sheego Soomaaliland xukumo iyo dhulka xukumo aan soo sheego xuduudaheeda laakiin 12 maalmood oo dhamaatay ma ka jawaabmayno waa caadeen asir jirto u jawaabmayno gudoomiye wasiirka warfaafinta dabcan hadalkiisa waad maqashay tareenkii waa dhaqaaqay ayuu yiri idinku tareenka ka haraysaan soo raacaysan هذا واحد تناول مجتمع كل واحد دولة صدق ليه توم مخرص دولة ما أنت شقيسان مجتمع حفيزون هو إسكتاجين ذلك استجنت نبغى يدي أنا ذلك إسكاله كان يكتب بخار كيس ليه توم مخرص قدومي فيصل إذنك كحزبية معارض أهان محوية قرشها آد هيسان oo ka duwan ka xukuumaddu sheegtay annagu waddankan dastuur baan ku shaqeynaa dastuurku ka tagay madaxweynimadiisa waa dhamaatay sharciga heed 13 bisha wixii ka dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland la wada yahay oo lagu heshiiyay oo madaxweynimadiisa la ogol yahay ma jirto 13 wixii ka dambeeyay waan cadeynay hadda waan ku cadeynaa wadajina waan cadeynaa insha Allah taala dawladda Soomaaliland oo Muuse madax ka yahay oo loo dhan yahay oo وحكومي ما جرتو صديقتهم وحي كدنبيا انا تاكو عدين دو تاس معناheedu mahanjabaad iyo in aad fawdo abuureysaan baa gudoomiye ana wajii waxaan sameeyay anina jirta qaraar doonta insha Allah taala halka loo socdo waa doorashada madaxweynaha ama ururada ha lagu hormaro ama tan madaxweynaha idinku saad qabtaan ha lagu hormare maxaa ku jaban oo aad ku diidan tihiin in qaato hanaankaas la isku wada raacayo xataa guurtidu ay labada sano ugu dartay xukuumadda oo ah in ururadaas waxaan ku sharci urur hormarinaya ma jirto sharci jira oo urur toos ah qaadanaya ma jirto sharciga jira ururadu wuxuu deegaanku xirfooyinka lagu shaqeynayo waa deegaanka ayaa la mar la qabanaya sharcigu waa caynka wax baa sharci ah oo wuxuu jecel sharci ka dhigay la ogolaan maayo Soomaaliland saa ku sii jirmayso hadalka wasiirka waxa kamid ahaa in 2 sano ay Soomaaliland ka luntay isqabqabsiga doorashada la xiriir awgeed marka dib u dhac kala doonaysaan Soomaaliland shan sano ka lumay shanta Muuse ay la khasartay laba كنا خسان شنبا كخسار تاسنا بموس وقمتي شقا مو أورين دتك مو مدين دورشلي مو قبن بيمو كينين دقالي هوس مو سعلا سوق لما دسين شن تاس شن مرن وتاجم بهدي أسقى قبسي يوم مدو كلا دل بلوبتو كلا دل قبيل كلي شنبا خسارة هالكوكي شيء أنا كورة laba waa shan golaha guurtida ayaa muddo 2 sano u kordhiyay xukuumadda si doorashadan ururada loo qabto soo marka uma muuqato in hawl mar hore lagu kala farxashay in aad doodka keenaysan gudoomiye ay wax lagu farxashay ma jirto wax xeera oo sharciya oo kudhiska loo raacay ma jirto waxa ay impeachment saaraysan in la xukumayo uu ka soo bixi waayay doorashada qan waayay commissionkii uu kala diray dalkii uu khalkhal galiyay wadankii uu baabiyay isaga in impeachment saaro guurtada guurti saxda marka arinta guurtada ka hadlaya laakiin madaxnimada Muuse Biixi in ka hadlaya 13 wixii ka dambeeyay madaxweynaha marka laga soo tago dhaliishaas aad xukuumadda u jeedinaysaan iyo hanjabaadahaas kale maxaad idinku qorshahaysaan oo ku aadan doorashadan iyo qaabka loo qabanayo ورانه waxaan ku leeyahay waxaan isla ogayn dalka ka dhicmaayo dalkan waxaan la isla ogayn ka dhicmaayo nin qoray dalka ma digtiid garan karo shakhsi uu ka weyn Soomaaliland taag qaran baan gelina taag qaran hore u soo martay oo ay SNM fariisan kala weyn kooramkii door ma la qab shir baa la qaro wala tashanaya tashi ku jirto waa tashi lagu jira laakiin 12 baa waxay 12 ka bari kadib maxaa samaynaysan anaga waxaan soo akhi doonta taladii baa lagu jira taladii la yeelay lahaas 13 wixii Soomaaliland ee qaran ka tashan lahay waa lagu jira taladeedii gudoomiye Soomaaliland waxa ka jira hay'ado sharci dejineed madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxa lagu daray 2 sano si doorashadan ururada loo qabto idinku wixiinu ma midi ku taagba mise qorshe kale oo qaran baad haysaan dalkani maanta institution shaqeeyo sharci shaqeeyo ma jirto baarlamaanka qabiil uu ka dhigay adiga arkay waxa ka haysta baarlamaanka ergooyinkii waa diiday guurtida waa aragtay bala sharciga ku foojisay iyo qudadeedu waqtigeedu dhacayo hadaa la bisha November December ayaa adduunka ma cadaan waan ku kordhiyay meel ka dhacda adduunka ma jirto dastuurka uu jeediyay marka maanta ma oran karno Soomaaliland institutionski aanu dhiibnay maalinta la doortay ku baaragnay uu baabiyay marka wala tashanaya Soomaaliland waa laga badbaadinaya hal qof Soomaaliland awal ma duwi karto waa laga badbaadinaya insha Allah ta'ala kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe oo khadka telefoonka iigu waramayay